daawadayaal haatan iyo warkii ugu dambeeyay doorashadii Kenya ee isbuuca soo qaadatay tirinta codadkeeda oo ugu dambeyn waxa ku guuleystay oo lagu dhawaaqay in uu si rasmi ah ugu guuleystay ninka la yiraahdo William Samoei Ruto. William Samoei daawadayaal haatan iyo warkii ugu dambeeyay doorashadii Kenya ee isbuuca soo qaadatay tirinta codadkeeda oo ugu dambeyn waxa ku guuleystay oo lagu dhawaaqay in uu si rasmi ah ugu guuleystay ninka la yiraahdo William Samoei Ruto oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya laba marna soo noqday madaxweyne ku-xigeen wasiirna ka soo noqday ninkan ayaa ku guuleystay doorashada ee madaxtinimada ee dalkani wuxuuna helay cod dhan sida la sheegay 7 milyan iyo 100,000 oo cod halka ninka la yiraahdo Raila uu haystay 6 milyan iyo 200,000 cod ma xasuusto oo ugu dambeyn gudoomiyaha hay'adda ama waaxda doorashooyinka Wafula Chebukati waxa uu ku dhawaaqay inuu ninkan yahay ninka natiijada saxda helay ama ku guuleystay wuxuuna ku soo baxay post percentage dhan 54% halka Raila uu helay 48%. iminka madaxweynaha dalkani Kenya waa ninka la yiraahdo William Ruto laakiin wadanka waxa laga baqayaa in uu galo qalalaas maadaama gudoomiye ku-xigeenkii waaxdani IEBC ay intay shir jiraayad qabatay ay sheegtay inay ayagu beri ka yihiin oo arrinkaasi aynan waxa meeshaas ka dhacay aysan wax sharci ah waxa qatar ah in wadanka dagaal ka dhaco nimankii jalwada ah inay dagaalka ciyaan baa laga yaabaa waxa soo kala jirta in madaxdii xisbiga Azimio ay diideen inay meeshu yimaadaan way diideen marka waxa baqtin baa hadda jirta waa la baqayaa maxay yeelay islaantaas waxa la leeyahay fidnay ka talisay inay iska aamusta la qaat ama dib ka hadasho ama ay xilli hore hadasho dad qaar waxay leeyihiin lacag la siiyo walaalo talagalay waxaan wadanka qasto calaa xaal William Ruto ayaa noqday madaxweynaha dalkani Kenya oo lagu dhawaaqay waxaan leenahay hambal yaniyahow kullay ma aqaan waxa soo korin doonto Ilaahay dhankaaga sanana soo aadiyo dhankaaga xubnaha Allah naga jeediyo hambali ayaan leeyahay horeyna waan u sheegay inaan hambali advance aan siiyay William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the president of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. And I'll proceed to sign the certificate